Isida, maxay garabtaane Isida. إجرا نقول أختر سليم وكاسود دهي وحد يقدر البيت وكوك يعني xilligan yaabay wax telefoonka nagu soo garaacayo war maxaa rabtaa subax wanaagsan mudane mar hoos muu soo degi kartaa soo daga waraani baani jilay aan aaday baaburka meesha ugu tagay baani jilay ma aytire ha baani jilay maxaa kugu dhacay xanaaqana maxaa keenay okay sidaas daytahay naagtaada hoos u soo degto waxa lagu tarjumaa wariyaa naagta ana qabo adiga miyaa qabo danaysan ku dhaay shaqa ma liide ee hawshaada raaco afaareyga soo galin gaarigana meeshiisa iska yaallo أنت رتاني إسبيتالك دولة أيان ربع أبايا فول هاي أوكي ولا هو كبري اسكولك كده هويا أوكي جوجي أدور سو فول بو إن أديك هالكان فريسو أنا هورا فول أوكي هاي عمرك هاي واسعين هاي حسابت مركان فيري أوكي واي يركب يقرأ نقبل وحيد maxaa kan kaniini baro war inuu kaniiniya waa u jeeday maxay tahay farmashi sidaan u weynad qabtaan daawooyinka dadka aad siinaysaan dadka dhan weynii aamina daawooyin iga soo doonanay adinkana maxay tahay daawooyin dhacay ayaad siinaysaan ma dhicin yaaqay hadda la istikfaalaha soo dejiye war kaniinka dheedkiisa dhacay
halo hoo yarka kala maxay tahay sidaan daaweyn dhacay miyaadna siinaysaan soo mooga daawada markay dhacdo dadka jirkooda inay sunku beerayso qofku uu ku xanuunsan karaa adigoo taas og miyaad haddana daawo dhacda dadka siinaysaa ma waxaarta inaan ku xanuunsado arrintan haddaan kugu dacweeyo soo moogid in lagugu xiro laqtitoora ka soo daay dhib ma laha yaa dhakhtar maa tahay daawooyinka iska bax marka adiga anigana waxaa rabaan iskaga hadlay maruu aniga banaanka adeeg gadaashii maxaa dhacay yaa maxaa dhacay ma leedahay gabadheeda mar walba dagaalkan ayaa fiirsataa weliba adigoo ayeedaa la sheekaysanaya haddii aan musaaraca fiirsan ma waxaan fiirsan lahaa sida raashinka loo sameeyo gabartay inaa ka yaabtid ma aha mar walba ciyaaraha sidaan leh u fiirsataa ayay aniga waxaan jeclaa mar walba agtaada leh inaan waqtiga ku sidaa ma u fadhinaysaa ciyaaro u fiirsanaysaa mise wiilka sawirkiisa ayaa daawanaya wiilkee ka hadlay sawirka wiilka miiska ayuu saaran yahay fiiri aniga aroosii buuqan banocee sidaas darteedan oo fiirin lahaa ninkeyga wiilka sawirkiisa tus gabadhaan war aniga buuqbuuqii aroos xilligan diyaar wiilkaas waa wiil fiican hooyo aabbana ma laha gabarha ila dhalato ama gabdhaha ila dhashaan ama reer oo dhan ha ahaadaan aniga buuqbuuqaasi dhibaatada saan badiidooyaa maskaxdani wiilkaas waa wiil aqoon leh keligiisoona guri degan yahay qof cilmi laha arbaani waxbarasho oo keliya kuma eko titoorna wuu yahay sawirka wiilka waa kana si fiican u fiiri wax laga yaabo inuu ku cajibiyo fiiri هاي كي واي بكن هاي سيدان سويركيسو هيستا كله aniga sawirkayga ma haystaan aniga u sii sawirka ilaa sidaas darteeda kal gacayl igu muujinaysa دكتور أكسلان دكتور wax walba kay Soomaa دكتور fiiri okay waan arkaa inay wax walba war heed dhigayso bisha hore la soo dhaafa qasaare ayaadna gelisay adiga way feelka waxa idibta 103 idageyso adiga daawooyinka meesha kugu qoran waa qaali daawooyinka la ay raadsanaysaa oo raqiisa isbitaalka inaad seexato looma baahna way faantan malayna Soomaa imadano ninkan dadka faqiirada bisoo ka fikira isbitaalka ka fikir ma ka warnay anigu waxaan rabnaa inaan isbitaal ka faa'iido en Maria mudane bukaanka 230 faylkiis diyaar miyaa diyaar waa doctor midda kale gabar ayaa maanta dhan arimaaga iga wareysanaysay maxay ku weydiisay doctor waxay weydiisay magacaaga oo kaamil Saliim miyaa magacaaga dhabta anaga intaas sano ayaan kula shaqeynaa saastaan magacaaga dhabta ma naqaano ay kalkaaliso wad maadsan tahay Abu Saliim Abu hal mar waxaan rabaa inaan kula waramo kaale inta soo galay ya xaytaasan qolkay ugu waxaan oo saahay hay wax kala wareega inay shaqada fahmi la ahaybe isbitaalka meel shaqada ka bilaabat sidaas darteed ma igu wacday gabar haddii si gooni kuu wacdo maxay kuu wici kartaa aad lee fikirbe yaaqi adiga yar magaala tahay in wax lagu fahansiini ma u baahnidee isfahanno intee lagaaga badan yahay yaaqi ani waxaan rabaa inaan kaa ogaado Saliim inuu nin fiican yahay oo gabdhaha soo dhaweey ama inas yahay nin fakfakad badan oo farihiisaba aan celi karin waa mahadsan tahay marwo adiga meel kuma xanuunayso أبو حروا إنا إيبلن قادد مركي قفص وحسوسيس قفك وجوريس إنا أنا ناخذ ولو باهي وكادو دكتور هذا نيه واوك هيا بنا قبل ما حاوينه قولك كوجو عته شيكة ما جت ويزت ما جت واحد سوق هذا كلا قبل ما دورت الشيكة هذا ويديني سعده كوجو عته إيش شك بواحد كده هي قبل داس هذيك محي كويديس ما يوحك لقي مورسين دكتور كحالة دي سكورن ناقولة مني أنك ناقة شح كسيمة ناقة شبيه أو قصر كأنا أنا كان هذا القاء أصوك وبكون بقى وصول إذا كنت من وحنا نك سنين في عوا السليم مجلسنا سليم وحصل ما يكويتيس ما ما ويدين أنا قال لك سعيد ضد كورة سنة سمقلو هذه كورة رادين يسوق جو بس لك سأنا رنتان أشياء إنها كسر كم بقى أورده مدن حوجا يركور قبل أنا أي ما تعرمها يعني ويديني وأنا كان أصور كذا في ربا هذا ميا يا مركز هذا دوي بحده أنت كبحده نعم سيد دبق لنا إن شاء الله يا أروس كوهرة بنيكن قبل دبق كوهايا حالة دي سير نقطة أنت هاي نيكا سوماركن كورة مشدنا
waa wiil fiican haddaba haddaad rabin anigaa ku dhegsaa ii sheeg adiga haligaa markaad dooranaysa aniga naag ma nihiniya saaxiibo warka badan jooji jasaabka imaadeen soo bax joogis malaha meeshaan abaa fiir kiya imaaday waana fahaya arrimahayga maxaa kaloo kaaga dhiman wax kale inaad ka soo baxd xitaa waxaad isku dayday inaad weydiiso xilliga anigaan musqusha galaayo ya maya ma weydinin xilligaa guriga aadaysa leen weydiyaani baxraan galow halay qabta waxay ila tahay waardiyaha xitaa inaad wax weydiisay maxaa aniga wax leen weydiiyey dembi maan gala mise waxaan xaday maxaa dhacay ninkii gursan raba soo maaha waa inaan wax walba ku saabsan ogaada haddaa dhaktar tahay bannaanka waxaa ku haysa inaa ogaada soo ma aha ila nimanka naagaya gursanaha been ay u sheegaan anigana ma rabo been ilii sheeg wax walba waa inaan ogaada noloshaan kula wadaagaya ninka aniga gursanaya wuxuu samaynaya waa inaan ogaada maxaa dhacay xaq ma uliyo firi buuggan iga qabo seeyala marka adiga makugu jiro degdeg inaad ogaato arrimahayga oo idil dhib ma lahan buuggaana kuu fududaynayo haddii wax kale aa u baahatana nambarkayga ayaan ku siinayaa iga soo wac waa kan si aad wax walba ii weydiiso anigaa wax walbana kaa jaahil bixinayo waa fahantino dad kalena ha weydiin arrimahayga okay halo halo doctore halkay joogtaa gudaha ayaan ku jiraa intee joogtaa adiga saliim kaale madax saraan ku baraan ku lehe okay waa mahadsantahay ninkan caadi maaha arrimaha bulshadu aad ugu takhasusay barasho wanaagsan nin arrimahaas ku fiican waa runtii waa runtiis waa sidoo kuu sheegay arrimaha bulshada ayaan ku dheereeyaa ammaantaadana waa ka dharagsanahay waad mahadsantahay waqti ayaan waayo aan ku wada kulanno dhib malaha aniga waxaan wataa mashruuc NGO ah oo carruur masaakiin wax loogu qabanayo marka waxaad rabtaan waad ku qarash garan kartaan carruurtan haddii ay jiraan waxyaalaha waa wada meeqaa u baahan tahay inta idinka karaankiina uu yahay intaasaad tisinaysaan waxbaa ka cabsan intaan ka badan aad iga mudan tahay saaxiibkee qadaadicdan adaan kugu talagalay boorsadan maxay tahay warkaan wax ma fahmaa waa maxay saaxiib anna ilgaar igu soo fiiraya iloobiyaa kontonkaa milyan adigaa leh okay ulajeedkaagase muxuu yahay saliim reer magaal waa wax inoo sheega uu ku dhan yahaan kudhaa wax walba asigaa fahmaya hay saliim lacagtan adiga ayay khaas kuu tahay birito oberation ayaa jiro waxaan lagu samaynayaa walaalkee waxaan rabaa si gaara inaad u ogaatid oo aadna ka taxadirtid sababta aan waxaan u samaynaya hay weydina sababtoo su'aalaha badan kama helo saliimow ninkaan runtiisu waa hoolahan ka bilaaw kadib hoolaha waaweyn adigaa gaaraya horumarkan intay ka bilaabataan ku dhaha wax walba iska hagaaga uqbariya saliim uqbariya iska keda xanuun waa ma xanuunsatay laakiin dadka kale inaad xanuunjiso waa rabtaa soo maaha iska jir ayaan ku dhaarimaan oo kale mar damba haddii aad ila imaato dhunta ku beelin labadiina isbitaalkaas agaarkiis diyaan idinku arko oo maalinteedii ku dambaysay saliim uqbariya qadaadicna ani ireeb qashinkana lacagta moodana adiga ayay ku anfacaysaa meel geyso raali noqo sheekada hayacday noqotee aniga cabitaan leen buu u dirsaday intaanoo dhan muxuu u maqan yahay waytarkan kan maxaa waaye cabitaan orange waa maxaa dhac adaa dalbaday kaala adiga sida hawsha loo qabto ma taqaanid miya eegaraal naqmaru xilligan kuu dirsaday xilligaa ii keenta maxay tahay mar waa cabitaankaas waa la soo shiidaa marka inta soo shiidaa waqtiga laas cabitaan inta la soo sameynaya ma waqti qaadanaya koob cabitaan aan kuu dirsada hal saac ayaad maqan tahay sidaas ma shaqada gudin ord manaajirkaaga igu dhaqso wax manaajirkan ku dhahay niisha sidee wax kaa yihiin koob cabitaan aan u dirsada meeqa saac uu la maqan yahay niisha isdeji yaaqay qofkan bini aadan way computer horta sidaada iga amsadi eegaraal noqo waa maadsantaa mudanadne adigaa mudan qaladka anaa iska lahaa meeshaan maba ka helin bana keen soo soco niisha u kaadi adiga taa joogays joogaan ku dhaa aniga waan baxayaa mudana ma soo geli karaa waa maxay tani
وشن روبي سو مجد وانا اوقعي لكن سليم سيدان ما حد سميسي اي شيء سببت كو كرفت سمحيته مدنه سليم هذيك واحد سميسي والله صعدتها سببته جاني سياد ياد وين ايا نقفسي تيدا كلام مركي دد اوبريشن لوgu sameeyay 300 kun ayaa laga qaadaa adigana lacag cadadeeda badan tahay ayaa naqafisay waan ogahay mudan laakiin sababta u sameeyay waxay tahay isbitaalka hortiisa ay ku socday anigana gudaha ayaan soo galiyay wax khaldan ma sameeyay ku ciil badana ninkaas lacag fiican ayuu keenay adigana waad ka soo diiday hawlo sharci darro ma qabanahay mudan laakiin shaqalinkaas kale dib waad dhigi kartay maxaa dhacay markii sheeg gabadha cid ma aysan lahayn anigana garab ayaan siiyay isbitaalka aniga uma furan dadka masaakiinta lagu caawiyo ee ganacsi ayaan u furtay hadda waad ka tagi kartaa waan ku fahmay mudan ديتاري qofka qaliinka lagu sameeyay dhibaata ka timid kaal soo fiiribo halo mudan saliim wuxuu ku jiraa qolka qaliinka halo yaa tahay adi qaybta soo dhaweynta ayaa isbitaalka u fadhiya arrin muhiim ayaan ka leeyahay teleefanka igu geybal mar wax yar qad ku jira inaan soo fiirinay mar walba bukaan leh muxuu ugu mashquulsan yahay halo magacaygu waa Soomay hadda waa bixina warqada invitation-ka qaada kadibna guriga si toos ala dul u aada aniga waan ku nacay sidaada maba kaa helin soo dhawow waan dhawahay marwa sidaa taadi waan fiicanahay caafimaadkaaga ka hadda okay iska adar waan ku wiilkayga saliim soo dhawow fadhiiso waan dhawahay adar warqadda invitationka arooskayga waay midda ugu horreysan adigaan ku siiyey wiilkayga neeshaa ma kaa heshay ii sheeg bal way iga heshay laakiin iyada wax may ku tiri wiilkayga adiga waxaa lagaa rabaa inaad mid ogaato neeshaa waa gabar madax adag mar walbana waxay jeceshahay ayada sida jeceshahay in loo sameeyo adigana waxaan kaa codsanaa hawshaad inaad xoogaa yar dib u dhigto si aad neeshaa waqti u siiso taas samee waayahay adeer wiilkaygiiyo adiga inaad qof wanaagsan tahay anigoo dhanaa kuu qirsan adigana waxaan kaa codsanaa tallaabo khaldan inaada qaadin ma qaadaya adeer gabadheeda neeshaa dhaqso banaanku soo bax wiilku guurso lahaa ayaa imaaday dhaqso shukumaankayga xaggee dhigtay ii sheeg gabadheeda musqusha ayuu dhex yaalaa gurigaana waabanca waxaa meel dhigatay lama arkaayo ninkaanaaba iiga daran markuu isaga rabo wuu imaanaya wuu ila kulmaya balse aniga markaan rabo inaan la kulmo maba arkaayobo bukaanuu ka daba wareegaha lagu leeyahay raashinka dooqayga ahaa ma ii samaysay maya gabadheeda iga raali noqo raalli noqoyaad leedahay raashinka dooqaygaana iima iga raali samaynaysa noqon ku dhahay maxaad i raalli gelisaa adiga raalli ahaansho ma taqaanid miya maxay tahay raalli ahow adiga mar walba mashquulaatay aniga xaggayga maba u soo jeedidbo waxaad leedahay bukaan ayaan ku mashquulsanay qalin ayaan samaynayay kalkaaliso teleefonka waa iga qaban kartaa tiktoorka kale wuu iga qaban karaa balse adiga igama qaban kartid sabab maanta barnaamij fiican ayaan ku hayaa aniga adigana magaalada aynu wada aadaynaa ka waran gaarigaa naga dambeeya muxuu hoonka sidaa ugu yeerinaa waryahoy maxaagtaa sida baawarku wadays dabaaliyo gabar daarta bismiya nin aroos wada camalo baawarku wadaa dabaal fiirba maxaa waaye sidaan yaaqay adiga dhan caajis ayaadba ka samaysan tahay
gaariga tartiib qabo waa waday booliis ma jooga taraafik ma joogto ma xoog wadidna maxay tahay tartiibkan halo nisha soo hadal saaxiib saaxiib aniga saaxiibka ayaan banaanka u raaci rabaa hooyaday ku soo wacda inay la joogtaa dhaya okay bye maxay tahay sidaan adiga dhan waa isku dhex dhici rabtaa war khatar iska dhig salmaan khan camal six back samayso war istaarka iga saxyaaqe adiga salmaan khan waa taageerta soomaa six back waa jeclaa barnaamijkeena maanta waxaan ku soo qaadan doonaa gabdhaha dabeecada ay ku dhaqmaan marka ay saaxiib yeeshaan wiilashii saaxiibka ay la noqdaan waxay ku xijiyeen casho igey shopping i samee guriga kiri lagu leeyahay sidoo kale inta badan waxay jecel yihiin gabdhaha saaxiibadooda inay yiraahdaan saaxiibay guriga caawa iga dambir hooyadii hadday ku soo wacdo waxay tiraahdaa waxay ila joogtaa xaflad balse taas xaqiiqda ma xafladda ma aysan aadin waxay aadaan saaxiibadooda inta badan gabdhaha wiilasha waxay ku xijiyeen inay samaystaan six pack sidoo kale iska soo dhisaan dhanka jiimka doqonde bal fiiri kanoo kala magaaladan iskaga nool gabadha hadday danteeda ka hadasho waxay u baahan tahana ee sheegto waxbaa laga sheegayaa bal fiiri hadda doqonkan wuxuu rabuu iska sheegayaa ka waran waad mahadsan tahay mudan gacanta illee kugu dhacday bay maxaa ku daarin maxaa isku waalaysaa saqajaan hataa gacantaadana ku talagal ayaa raalli ah ma ku dhihino gabdhahana sidaana u qashqashaadaa wasqaaya waxunkaa sidee ku mayma isdeji war waa saqajaan aniga ayuu qashqashaadaa ka war ku kuma qashqashaadi raalli ah ma ku dhihino bas waay haddii aqashada intaas ku ekeeya nakeen adigana war waa beentis ku talagalo gacantiisa iigu taabtay aniga fiiri okay waay dhib malaan isdeji fiiri bas isdeji may dib yeelan waxaas nagta yaa taabtinina sheega dagaal iyo buuq ma ku soo quraactay naga dhafay yaqay subax way sheekaan ugu bilaw may wax ma jiraan may isdeji yaqay aniga jooga haddii buuq waad kaysan waysan ana idin karaan garanay tartiib yaqay may sug yaqay adig sawa ana joogo tartiib isdeji soo marka xaalada deji tartiib maxaa qadka dawlaalo gabadha may sawa yaqay adig sug maxaa cadde walaal okay maxaa dhacay dagaalka aniga iyaga naga dhaxeeya adiga maxaa ku raaligelinaysaa maya bas war adiga sidee kaana ku timid maxaad raaligelinaysaa dadkan ayaa qalad iga galay adiga sidee ku raaligelinay warna sii daa doqoyin waxanka naga tag caqlilay kaale bas tiraade nisha waa ku baryaa isdeji inaan wax ku sheegan rabaa dhageyso horta fursad si sida nisha waxba ha ii sheegin maxaad ii sheegaysaa ara dadkaas wax sheegitaankaaga baan iigu soo sheegay waan dareemi karaa adiga weligaaga inaan lagula dagaalin si fiican in lagu soo kolkoliyo waan dareemi karaa nisha waa ku baryaa hadalkayga dhageysa nisha ayay muu tagnaa mala soo dagaalna hadda kawar nisha soo bax marka duulimaadaan qaadayna baangadaada soo qaada waxbaa soo reeba aywaad baxdo qalad waaye war waxba ha ii sheegin waxaan kaa maqlaay malaha labadeenan isma raacinaysa nisha kaale lacagta majaajta ku tuur nisha waxay rukaadi waxba ha ii sheegin wiilkayga soo dhawow ha soo gal waadi salaam adigana waa ku salaam wiilkayga niisha ay sheegtay inaad operation ku jirtay aad ku guulaysatay sax ku haysantahay niisha nisha maxaa u baahan tahay maanta dhalashadaada miya haa marka hore maxaad iigu sheegi weysay maba loo baahna maxaan kuugu sheegayaa sababtoo adiga mar walba mashquul ayaa tahay anigana jaanis maba ii helays ilaan dhakhtaraa tahay mar walbana operation ayaad ku jirtaa ma og tahay adiga
sida xiriirkeen u bilowdo waa marka ugu horeysa xafladda dhalashadadan arka haddii aad ii sheegi lahayd waan ku farxi lahaa iska dhaaf haddaa uu hadlo sida qof bukaan oo kaleete ka waran haddii aan magaalada kugu soo wareejiyo waa mahadsan tahay raashinka jeclaa waa runtaa muddo kadib aan helaa raashinka jecla aniga ha nasiibe ka leex haddaan isku dayaha yaa isku daldalaan ku dhah yaa saliim aha ay saliim aryaa inta xad ka soo doontay ii sheeg maya wax saas weyn ma jiraan jawiga wuu degan yahay anishaa ma wax ku dhahday maya waxba ma aysan idhihin maya runta sheeg walaxay ku tiri beentaada maa niishaa wax way tiri weyn iyo xanaaqsan tahay telefoonka xitaa way iga qaban la'dahay ma aqaana marka taas maa wax weyn ah nin walbay qabsataa naagtana waa ku kacdaa marka deji naagta ma og tahay qalbiga bini'aadanka markii uu dhaawac soo gaaro weligiisa dhaawacaas wuu haynaa ilaa uu ka dhintana saliim horta jacaylka laguu sheegayo waa sida baabuur lagu tartamayo kale marka baabuur markaa ku tartamaysidna wax badanaad kala kulmi karta marna waad ku raaxaysanaysa tartiibaad u waday oo macaan badan marna waa kula gadoomaa mugaasaad fiiqfiiqmaysaha ku dhahay mugaad fiiqfiiqmatidna tartanka waad ka hadkamataas haddana waxaad samaynaysaa gabadhaas waad u tegi foolka foola kula kulmaysaha ku dhahay intaysan taas dhicin niishaa saaxiibadeeda ayaan wacay si labadeena ay noo kula siiso laakiin haddii aan la kulmo maxaan dhahahay maxaan u sheegaa war adiga imtixaan jaamacadeeda gelaysid maahan gabadha taleefonaad u diraysaa kadibna waad la kulmeen waxaa laga yaabaa sidaad adiga u ratid inaad la kulantid ayadana inay u ratid inaad kula kulanto marka sheeka la qaada foolka fool sheekada u dhammeey jagjag ka dhigaan ku dhaa haytaa adiga hana cabsanin cabsida daay horta hadalkayga si fiican u dhegeyso adiga waxaa tahay nin maskiin oo hadal badneen marka waad baxaysaa gabadhaad u tegi agteeda iska fadhiisay sida sanab oo kale markaasna ayada waxay u fikiraysaa inaad adiga ka xanaaqsan tahay oo kale way kuu imaane gooniya kuu baxsane markaasaa waxaa la rabaa sheekada jabaqbaq jubuluq inaad ka dhigtoa la rabaa oo gabadha shumisna ku siisid shumi gabadha haddaad shumis waa ku jeclaahe warkaaga ma xuma laakiin mar kale ayaan ka dhiganaa war adiga waa hurdoosaani oo daana hortii dafanaad joogalee waqtiga iska luminaysaa gabadha waxay ku fikiraysaa in adiga raaligeliso adigana waxaad ku fikiri gabadha inay ku raaligeliso midaasna mid suurtagalaysa maaha inaa imaahay dhexdiina bajal khasiiha haddii ay diidda ka warantaas diidi ma kartaan ku dhaha horta u tag horta kadibna wixii ra'ya ani isoo wacnaa ku siiha waayahay waxaan macno leh isku mashquula ayaan xafadeed هاي مرو حكوت البعض ما يوحيرك هذا قفا ينسوغايا الو سلك بوليس كمية
saaxiibkaada meeqa sac ayuu kaa maqan yahayne saaxiibe haddeer uu bisan yahay guri kadib sidoo noqona ninkaas kan nin ma aha nin fiican ma aha nin fiican waa inaad raadsataa halo waxaan u baahnaa doctor Saliim ma heli karaa mudane qolka bareeshiga ayuu ku jiraa wax yar sug marka halo Saliim ayaan u baahanahay marow igraal noqo caawisada qolka operationka ayuu ku jiraa marow هاي دكتور سليم أديك ما يسوي هاتلي هاي محل عيشك أوكي اقرأ النقم مدن تليفون أيا كويال هلو ما يقصع وين ما تقانا اقرأ النقم نشا رال النقم حالها aniga asxaabteeda ayaan balmi adiga ayaa gudada asxaabtaada ii balami xafladii ayaan sameysanaynaa intaana waad maqanta asxaabteeda ayaa igu hor ceebeysay dadkii dhan waxaad iga dhigtay qof aan sharaf lahayn haddii aadan imaanayn asxaabtaada balami maxaad ii dhahday maxaad si igu ceebeynaysaa saaxiibaday waayahay haddaad arki doontaa waxaan ahay useless dheh wejigeeda dhaawaca ku yaal soo ma jeed gacanteedana sidoo kale lugaheedana soo ma jeed dhaawaca ku yaala marka wixii rabada aqoon aniga gabadhi waan arkay adiga waxaan rabaa salliga inaad timaado okay taliya haddii aad dhibaato arkayn aad u mahadsan tahay adiga mudan arooday yaa intaa ka baxda malayha mug haye haye mataqaanaa ii sheeg bukaankan si fiican u fiir wejigeeda doctore adigu waa soo fiiri kartaa maqal adigana waa u geli kartaa adigana nakee waryaa adigana waad u geli kartaa doctore kaali laafta ila fiiriya iya maxaa dhacay marwa maxaa kugu dhacay istaag doctor tartiib istaag يا ساعة نصوعة نفر جعلت كان تلي أنا ورانتو كجرنا جور دعوة وضد كوارني كدي أنا واقعني إسبتال كيان جيني ما أنا شايف كرنا فلكاس عيتك الدم بيسي لكن إلا هدم وكرت جونا جود أصلا دعوة فربنا يا كوياري كدبنا كل هذا إسبتور تامل دكتورة قبل هذا واحد قبر مساكين حتى بنانك ميسن وصوب حجر قبل صاحبة أو لو وريت ميسن لين قبل أنا جاي هذه قصة درس كتب أنا قبل هذا ميسن يسول أبني دكتورة قبل هذا حالته أيه قصة كنت أنا قال أنت زين ونولا هذا يشك بل قبل مركي يرد واحد يجلس هاي مركي أنا وين هذا وحباك وحول أنا قاعد أكو قوناي وأنا بل بوسك أبو أنا قاعد أكو بوحنا يدي جرت أنت قبل سيدنا يا لوك علي سيدا قال قبل واحد يدي جرت هاي فديا قاعد أكو هذا مع معك حتى أنا قاعد أنت ذكو سينا هاي يدي جرت هذا بالفيري قبل تذكر sidee u galeen anigu waxaan rabaa gabadheed dadka sidan u galay in looga aargudo oo ciqaabtooda la marsiiyo ma rabo dadkaas inay badbaadaan waan ku baryaa titoora wax ii qabo gabadheed waxba ha welwelin gabadhaada markii ay soo naxdo iyada ayaa sheegi doonta dadka sidaan yeelay
sharcigan wax ka qabanayo sharciga muxuu ii qaban karaa waan ku baryaa adiga ayaan garabkaaga baahanaa waqtigan waan ku baryaa wiilkayga garab isi gabadheedan xaqeed iigu soo dhici gabadheeda iyo badbaadi waan ku baryaa garab isi gabadheeda soo hadal Titore yaa waa qofka xanuunsan aniga ma ogi waxaan maqlay booliska inay warays ka qaadeen gabadha yaa waay aniga ma aqaan gabadha yaa lacagta ka bixinaya ii sheeg bal gabadhaas haddii operation lagu sameeyo muhiimaddu waa lacagta ma idin daran mise qoftaas nolosheeda ayaa idin daran kiisaska noocan oo kale isbitaalka dowladda loogu talagalay soo ma ogi taas waa ku fahmay kuwa lacagta leh isbitaal qaasa lagu daaweyn laakiin kuwa faqiirada isbitaalka dowladda loo diro sama gabadhaas lacagteeda aniga ayaa bixinaya ha ka baqin shuruuc isbitaalkan u yaal waa taqaanaa soo maaha aniga shuruucina ii tilmaanto looma baahna wax walbana aniga waan samaynayaa sababtoo ah anigaba dhakhtar ayaan ahay waxay ahaatay arrintaasi mudanaha ka wada hadlaysiin haddana waa ila jooga la hadal waa ka mudanaha Titore gabadha xaaladeeda iga waran ilaa hadda way suuxsan tahay markay soo naxda anaa ku soo wacay Titore okay adiga warkaas sugaya bye caawa soo daahday weliba gabar ayaa daaweynaysay gabadhaasna waxaa laga yaabaa adiga xaggaaga inay qof qaasa ka tahay anigana waan ku sugaayey waxaan islahaa wuu kuu imaanayaa balse xaggaaga wax culeysa maba ka saarna arrintaas kuleel ii qabowna kuguma hayso balse waad og tahay aniga inaan ku jeclahay aad iyo aad ayaan kuu jeclahay Saliim هلا وسليم halkee joogtaa ii sheeg bal guriga ayaan joogaa xalay ayaan qalin ku dahay sidaas darteed ayaan guriga ugu maqnaa anigaba arrinkaasaan ka walwalsanay waxaan rabaa arrinkaas in wax iga taataabato mar kale ayaan kuu sheegi doonaa bay waxaan rabaa inaan kula hadlo weliba arrin qaasa intaan kula hadlayo fadlan taleefankaaga ma dimin kartaa niishaa waan ogahay aniganaan qaldanahay saas darteed waan ka raali garaynayaa okay iga raali noqo haddii ay sidaas tahay kafay ayaan kuu soo diyaarinaa guurkaaga diyaaru miya aniga sababtoo ah kaamaba helin waad ila kaftamaysaa soo maahan runta ayaan ka hadlayaa waana kaa tegi rabaa sidaan kuu daba socda aniga waan badaalay ogaadi qalad maan galay qalad keliya ma ahan ee qaladaad fara badan ayaad iga gashay markaan aniga 2 saac ku balamiyo 6 saac ayaad ii imaanaysaa markaan taleefankaaga soo wacana igama qabanaysid waxa iga qabanaya adiga gacanyarahaaga amaba kalkaalisada adiga kula shaqayso markaan labadeena wada soconana dhalinyarada markay ifoodayaan igama celinaysid ee iyaga ayaad raaligelinaysaa xaggaagana wax qiimo ah kama lihi okay adiga waxa tahay qof wanaagsan anigana midaas waan ogahay waxaan islaa marka hore labadiina waad isfahmaysaan balse adiga deganaashahaaga aniga waanba ku daalay ilaa haddana waxa tahay qof aanan fahmi karin 2 maalin oo kaliya naso wax walba way hagaagi doonaan Saliim xanuunkayga mid dawo u baahan maahan isku day inaad fahantid wax walba muran laguma xalin karo kaararka qaado gurigiisa ka tag wax walbana way xalismi doonaan go'aankan aniga waan ka soo fikiray Saliim marka adiga maxaad ii qasbaysaane
go'aankan aan gaarno waa kayga ugu dambeeyay Saliim. fanbroj.com إنتوا سيدات هنا bukaan kaawe ولا وريجي waa la wareejiye ah intee la wareejiye ماشي لقي أنا قبل ما أخان مال بواحد يمكن Hello mudane. bukaanka shalay aan keenay intee la wareejiye gabadha isbitaalkan waa laga wareejiyey isbitaal kale ayaa loo wareejiyey famil saas u badan ma aysan lahayn waalidiinteeda oo keliya ayaa la joogeen lacagta aad ka hadlaysaan soo maaha dhibka kama taagna kharash bixinta okay isbitaalka loo wareejiyey ma garanayo mudane okay ambalaaskeena maa lagu qaaday ambalaas oo caadi ayay ahayd laakiin mudanaha ayaa u baahan inuu adiga kula kulmo xalfaddan aad u imaato okay u sheeg anigaa u imaanahay maadaama isbitaalkeena faa'iido badan ay u soo hoyato waxaan rabaa dadka shaqadooda ka soo baxay inaan abaalmarino guddoonsiiyo abaalmarintaasna waa mid ayaga ay xaq u leeyihiin wayna ku qanci doonaan sanadka dambena waxaan rabaa lacag 300 oo bilyan gaaraysa inaad u soo hoysaan isbitaalka okaadiya isbitaalka waa isbitaalkeena haddii uu horumar gaarin idinkana horumar ayaad gaaraysaan ready mudane ready waxa uu ku guuleystay abaalmarintaasna wax kale maahan waa gaarigaasna qiimihiisa wuxuu joogaa 55 milyan asaga ayaa iskale saacadar ka bilaabato ready hoo furahan xalfadda hadday dhammaatana gaarigaaga ayaa ku baxaysaa qabso oo ku barya jane xilligan ka bilaabatay gabadhaada jaamacadda lacag la'aan ayay ku dhiganaysaa واو أنا كهلي waxa kaloo i dhiman qof hadiid qaas aan gadoonsiin rabo qofkaas yuu noqon doonaa kulle waa qof mutestay واو hadiyadda idin sheegayna hadiyad ciyaara maaha qof walba markuu gurigiisa tagay ayuu arki doonaa waa inta muteysata oo keliya abaalmarin sideeda bannaan waxaa la siiyaa qofka u qalmo oo keliya qof kale lama siiyo jeni ninka la yidhaahdo wuxuu la wareegaa saliim shaqadiisa saliim adigana shaqada waa lagaa saaray iga raali noqo سليم سرنا انت او نو شقينا وين لسيا waxa uu xaq u leeyahay ninka la yiraahdo magaciisa Saliim wuxuu ahaa nin shaqadiisa ka soo baxay anigana hadiyad waxaan uga dhigay qalinkan oo kaliya maadaama uu dadaalay maadaama uu Saliim caawan naga tagi rabo waxaan rabaa xalfadan in asaga ku magacaabo magaciisa dartiisa xalfadan lagu cabaa idin leeyahay sababtoo waa sagootintii Saliim هاي ما عاد تقصر فرحت كعبة ترتيب هذيك نوحة كهرباء عاوين عيارتي وعيالك طبعا ما حد عيار عوض ومع سلاميس سليمة يلا مع سلامية عيارتك عيارة هلا باشا نوع عيار انا كبرين عيارة ترتيب عيار هديدني عيار
sidaan xaq maa saliim u kaadi maxaa dhac sidee ku bixaysaa annaga kuma ogolaanin inaad baxdo joog ayaan ku dhahay u kaadiya dhallinyaro u kaadiya muusikana hala joojiyo saliim xafladdan adiga ayaa lagugu magacaabay inaad halkan ka tagtan annaga kuma ogolaanin midaas waa ka soo horjeedaa waad toogaysaa ayaan ku dhahay hadalkayga si fiican oo maqal iidhib adiga inoo bax lama ogolaanayo isoo qabo ninkaas kale u sii dhiib السطر براو براو سليم كجوب ما قدر اي عنني قد وريا आओ बुर्सदी हेलो हेलो ये एकदम आओ बुर्सदी आओ तला उड़ी isu badnaada waa kana magaalada shuruudo ayaa lagugu xiray aniga dhakhtar ayaan naqday waxaan is lahaa dadka daweyn dadka masaakiinta ana wax u qaba laakiin masaakiinta wax looma qabo tu shuruucyo aanan jirin musuq maasuq tuugnimo ay ku keenayaan no baakin ay ku leeyihiin meeshan dadka sharafta leh gaarib kuma baakintaan waxa ku baakinta oo keliya kuwa anigoo kale oo ciyaal suuqiinta ah naga taga waryahoy mootog maxaa lagu jibinay kaalurya maxaa kaa soo hadalsiina adiga waardiye maa tahay ilaali maa lagu dhahay saco warya saco idinka waxaad rabteen soomaan anigoo isbeddel inaad i aragtaan waana kan hadda waan isbeddelay sidaan ayaad soomaan jooji warya gaariga adiga yaa waxaad igu arkaysaa soomaan dharkaan ii xiran bes waay waxaan dhan meeshaan isaga tuura fiir boorsada waan ku riday kanna waan raaciyey xataa edhikaarka uma baahni waan isbeddelay idinka sidaan ay la rabteen soomaan soo daaya waxaad haysaan aan arkay jooji jooji warya jooji jooji dad socota jooji jooji sorry iga raalli noqo mudan iga raalli noqo adiga fiiri sorry waddadan way xiran tahay adiga sidaad ku soo martay ii sheeg hal waddo oo keliya ayaa loogu talagalay in la maro tan laakiin maxaa ku soo marsiiyey soco waddadaasi mar soco dhaqso adiga kula hadlaya mase shuruucdaad ku ciyaaraysaa iyo nidaamka waddanka askari ayaad ahayd miya idinka ayaa dadka dhahdaan sharciga hala ilaaliya nidaamkana hala ilaaliya sidaasay tahayna idinkii ayaad nidaamka ku ciyaaray sidee ku dhacday markii ii sheeg sidee ku dhacday tali ii sheeg bal fiiriya dhowdhow inuu iska soo dhigayo rabaa inuu anaga sharcigana baro war ninkan oo kale xabsiga inta la geeyo ayaa sida loo garaacayo khamrigoo dhan laga bixiyaa wariyaa adiga soco ayaan ku dhahay tali waa ku baryaa dambiilmi tali waa ku baryaa skete tali waa ku baryaa tali iga raalli noqo oo kaale aniga maa soo istaag ku dhaha adiga wax fahamsiina okaad adiga tali haddii aad macquultaa ninkan jaamici waa iska fasax yaa war adiga shaqa ma leedahay shaqadaada raacayaan ku dhahay soco tali dhakhtar ayaan nahay ditor ah edhikaar ma wadata adiga haa waa wataa tali maxaad hareeraha ka fiirinaysaa ii sheeg jidka iga soo dhacno war adiga kaale nin ditoor ayaa tahay waxaana lagaa rabaa mataqaanaa
inaad dadka nafsadooda badbaadiso adigana intaad khamri iska soo dharjisay ayaad haddana booliska dhibaataynaysaa kadibna waxaad rabtaa booliska inaad barto sharciga wuxuu yahay taasna macquul ma aha tali anigan mar damba dhacayo waryaa tali soo fariiso kuma aanan dhihin maad fariisatid telefoon muhiim waa tali inaan ka qabtay ogolowna war daruurigaaga ma naqaanay fariiso xagga ayaan ku dhahay habeenkii inaad isku soo daldashaan ayaad waxaad imaanaysaan waddooyinka kadibna askartaad rabtaa inaad sharciga bartaan war idinkoo kale kumanaan ayaa habeen walbana soo mara ma fahantid sharaf ayaan leeyahay ayuu ku leeyahay halo halo wiilkayga saliim adiina ishaan baad sagaasheen maya adeer arooskiina isbuuc xigoo dhici lahaa kaararka invitationkana waa la qaybiyey ayadana waxay leedahay arooskan diyaar u maysay waxu jiraan maya adeer wax saas weyn ma jiraan waryaa keen telefoonka aniga aamusnaa meeshaan ku fadhiiso kuma aanan dhihin waryaa adiga waxaad rabtaa haddaad samayso maanta qof igii badbaadin karta haba yaraatee ma jirto isbuuca dambe arooskayga waa tali waa ku barya aan la hadlano war baqbaqdaada xagga la tag socaayaan ku dhahay soco walaalkay saa maxaa u sameeyay waryaa meesha suuq miya kaan halkan inta ima wayaan ku dhahay kaalay waa kana edab ma leedin ninkayga maxaa dhacayne telefoonka igama qabanayo waan la yaabanahay walaalkay war halkan kaalay meeshaan waa la isku garaacaa ogow ayaan ku dhahay xabsi ayaa la yidhaahdaa wixii dhiboo jira aniga ayaa xalinaya ii sheego lacag la'aanu idhigi kaalay waryaa oy kaalay taliye ninka waa kaay aawe aawe hala qabto aawe ii soo qabto soo qab hala qabto waryaa ya istag waryaa istag lagu badnaa kan istag war istag waryaa war haduuman istag ya istag waryaa war dadka intaan soo dhextaan waa lagu dilay haddii lagu qabto war istag waryaa war istag waxay saa qabo ninka waxay saa qabo waryaa istag istag ayaan ku dhahay waryaa istag war istag istag war istag istag taliya wadhac aw bisolad bajaaj u kaadi waa ku barya jooji jooji meeshaan layga wado ku barya dhaqso war bannaanka u soo baxayaan ku dhahay waryaa soo deg ayaan ku dhahay war adiga maxaad noo malaysa annaga haddii aan booliis nahay inaan ugu ciyaari kartida hadda ayaan ku barayaa waxa aan nahay adiga inaad baxsatay aad isku dayaysaa soo maaha geesaha haddaan fiiriso xitaa lagama yaabo inaad naga baxsatay ayaan ku dhahay war adiga waxa kaa waalinaya teleefonkan ayuu ahaa soo maahan teleefonka intaan kaa hayo adiga meel ma aadi karta anigaa kaa haynayaan ku dhahay hortore qofka ku soo wacayuu yahay doonooyinkan oo ku xil dheer tahay anoo malaynaya abtimiyaa ku soo wacaayaba yuu yahay abtigii ku soo wacaya ii sheeg sodogayga waayna oo arooskaagu wuu dhacay miya maya isbuuc kadib ayuu dhacaya kaba soo qaad isagoo dhacay meeshaad ku gelaysa ma taqaanaa xabsiga waaye waa balanayaan ku dhahay muddo 2 sana ayaad xabsiga ku qaadanaysaa in lagu damiinto xitaa way kugu adkaan doontaa qofkii isku dayaane waxay ku qaadanaysaa 3 bilood 3 biloodna dhedheel maaha adiga sodogaa uma sheegin amalayna haddaan u sheegaya waa ku baryaa tali arrinkan nolosheeda ayuu quseeyaa muxuu u qaban layahay teleefonka wiilkayga saliim maahan ee waa taliyaha ciidanka booliiska wiil dambiilaha miyaad gabadheeda ku darsanaysaa
saaxiib waa ku baryaa ha igu dhufsan ha i dilin war adiga nin sharaf la ayaa tahay waxaan waa khalad sharciga ha ku xadgudbin waan ku baryaa bistooladan iska dhig maanta aniga tii dheereed ayaa igu dhacday ayaan ku dhahay aniga muddo 10 sano ayaan sharciga u shaqaynaya haddeertaanne saan ayaa la ii galay lagama yaabo inaan ninkasaan dhaafo waxaan tusayaa waxaan aniga ahay aniga deganaantaada waanba la yaabay agtaadana waa ku caajisay xitaa haddii dhallinyarada ay qashqashaadaan igama celin karto oo iyaga ayaad raaligelinaysaa guurkaagana aniga diyaaru ma ihin xabsigan waxaad ogaataa cid kaa bixin karto ma jirto ayaan ku dhahay saaxiibkay saliim intaad daacad iska dhigaysa adiga shaqadooda xataa ku weysa weligaa sidaan le ahaanaysaa shaqo xataa meelaysid bannaanka iska taagnaa anigaa raaxaysanayna anigaa baabuurta quruxda badan ku soconayn magaalada sidaasaan kugu ogay saaxib صاحبك سليم gaari ayaa lagu siiyey weliba gaari cusub maahan waa sakan gaariga sakanka ayaad rabtaa dad dhan noloshooda inaad baabiso ma shaqaystoriya adi xataa meel kale shaqaada karaysataa ma keenaysadaa kuna kelimad danba haddii afkaaga ka soo baxo toos ayaan kuu xawilaa aku saarire aku arere aniku ase ora وكادي حير ليش ما حكى صوت انت ايش اكبر وكادي وحير يسوق صوت ليش رياضة صفي عيد قسني كابنا كي قبحية اذن ده دي لو كنا فيها كجبي كان اسبتال ما فرط مسكوان قمري ayaad meeshan ku cabaysaa anigaad miigu tilmaamaysaa inaan qaldanahay sidaad u dhalatay ilaa iyo hadda lacagoo keliya ayaad raadisaa soomaa waatana qaado lacag ka daran anigaa ku dhahay waatana سليم waxyar u kaade ahdalla dadkan waaba taqaanaaye waxaanu naxaad u samaysay ii sheeg baniyo ii sheeg سليم biskooladan maxay ahayd waxaana samaynaysa waa wax sharci darra biskoolada ii dhib wax walba anaa xallaay magaaladan sharci kama jiro aniga dhakhtar ayaan ahaa waxaan ugu talagalay dadka inaan badbaadiyey laakiin qof baa ku imaana wuxuu ku leeyahay qofkan ii daaweeyey lacag ayaan ku siinaya qofkan wuxuu ku dhahaa aniga qaladkayga igu raac lacag fara badan iga qaado marka taas maarta inaan aniga dadka ku fiirsado waa may saliim laakiin waxaa samaynaysa waa wax sharci darra wariyaa iyaga waxay samaynayaan sharci ah soomaa dadkii ixigoo dhan waa iga fogaadeen isbatoraasna markii aan runta u sheegay aniguba dembiile igu tilmaamay wuxuuna rabaa 2 san inuu igu xukumo taas ma suurtagal ah saliim biskoolada iskala marka biskoolada isagaa leh laakiin isaga sidii la rabo biskooladan uma isticmaalin sharcigana uguma adeegayn laakiin aniga ayaa sharciga uga adeegayo waadna arkaysaa saliim saliimo fanbroch.com
gooska gadaala iga gaartaye sideen kaaga go'aan sidee qolkay ugu soo gasheen ii sheega maxaa idinka see maxaa ka soo doonteen war maxaad samaynaysaan waryaa maxaa ii duubaysaan ordaha iga taga maxaad ka waddaan waxaan war iga foqa iska keedhaafa maxaa igu samaynaysaan ma idaysaan maxaad ii duubaysaan walaalayaalo maxaa iga rabtaan aniga walaasiinoo galayaanahay ma iska keedhaaftaan idhaaf waa idin baryaa walaal waa ku baryaa iska keedhaaf ha samaynina sidaan waa idin baryaa walaalidaaya Peter, qof irid soo garaacayo soo fiiriba. waa idin baryaa iska keedaaya iga foq maxaad iigu dhagantiin Guryaa, yaa tahay adiga? isaga tag meesha soo gaaro wuxuu sheegay hoteelka weyn ee White Palace inay xabad ka dhacday xabadaasna cidii riday ilaa hadda lama yaqaan mideeda kale meesha waxa ku sugnaa wiilka uu dhalay wasiirka iyo asxaabtiisa ilaa hadda aqbaar laga maayo sida warku maqashay hotelka White Palace Aldis aad bay u xun tahay ilaa haddana aniga ma sheegi karno gudaha wax ka socda balse waxaan ognahay wasiirka wiilkiisa inuu ku sugnaa hotelka gudihiisa iyo saddex wiil oo saxiibtiisa waxaan ku sugnahay hotelka banaankiisa shacabkana ilaa hadda waxay ka war sugayaan hotelka wixii warar ka soo baxo balse aniga mar walba waxaan u taagannahay war dheeri haddii warkaas oo nagala soo gudboonaado inaan nii soo gudbino waad ku mahadsantihiin daawashada iyo la socodka TV-geena halkaa nagala socotiin waa Muqdisho Cable TV ciidanka dhammaan gaariga ka soo degaan
daawada ilaa haatan waxaan ku sugannahay White Palace Hotel hortiisa waxaan halkan u joognaa inaan helno warbixin buuxda taasoo ku saabsan xabadii ka dhacday hotelka martida hotelkaas degan oo dhan dhammaan waa ii soo saaraysaan tan kale waxaan u baahanahay shakhsi kale hotelkaas degan haddii aad ka shakisaan waa xiraysaan howshaasoo dhan idinka ayaan u baahanahay inaad qabataan sida ugu dhaqsiyaha badan waxaan u baahanahay inaad baaritaan suubiyo okay waxaan ku weydiinay hadda kor meel ma ku aragtay maya taliye hotelka CC camera ma ku xirneed ها hareeraha hotelka dhan waa ku wada xiran yihiin sawirkiisa ama muuqaalkiisa haddii aad aragto ma aqoonsan kartaa adiga anigu waan fahmi karaa zoom isoo dhe camera dhinaca soo wareeji qofkaas ii soo dhaweey oo soo socdo ha kaamiridiisu keliya iyo fasax asagoo keliya inaan arkaan rabaa taliye ninka waa kaas taliye waa asiga naftirkiisa okay bella waay si fiican igu soo dhaweey asiga le ku qabo kaamirada kaamirooyin kale karaada inay wajigiisa qabteena macquul asiga mala kaamira wajigiisa qabatay war idinka hotelkii nisaan ayuu u weyn yahay maxaa idinku dhac marka meel kasta kaamira ku dhigantaa la rabaa taliye meelaha qaar anaga kaamira kuma xirno sida qolalka jiifka iyo musqulaha okay waa idin fahmay meelaha qaar waxaa u diidaysiin waxyaabaha kale inaad aragtaan adiga dhegeyso wasiirkayga waa wasiirkaan u baahanahay inaan la hadlo okay waryaa adiga yaa tahay aniga maxaa naga rabtaa noo sheeg ilaa iyo hadda hotelka banaankiisa ayaan taaganaa dadka gudaha ku jirana warbixin kamaanay war aniga aqoon nuuma lihid dani waxay kugu jirtaa anigana gacmaha naga wada furto mid ogow aniga sidaa kaama haraayo waan ka cadkoosanayaa ciil badana marka koowaad meesha muhiimka noo annaga waa meeshaan tan labaadna ciidanka waxay ka fuulayaan dhinaca jaranjarada dadkan waa la hubaa meeshaan ayay ku jiraan waxaana loo baahan yahay meelaha ay ka bixi karaan ciidamadoo dhan inay tagaan si annaga aan u qabanno mana raba dadkaas aniga inay iga baxsadaan هلو هلو ما إله هذا ويلكي لا هذا هلا أبي ويلكي معاك وقول عادية سيدي وحجران حالة ذي يقول ويلكي سيدتها أنا أبها عيد وحقوق سمين كرت مجرته ها أنا وافي عنها أوكي هدات في عنتها مروجة كويس سمحتها إيش جواي هاي إن أول وش الله ما بهنا أنا جا كوج جوجا وحكستنا أنا جا أيام كوجا بناي إكليه وحنكار وانكاس إن الله ربا تلفونك يقولي هدي أي جرتو أنا أسجع حرقوا فينا قد حسينا ويديان ربا مرك ما يقولي بك تقول كيجا نيجا خوفكوا يا أنا ما خان سيدا هذا تلفونك يقولي مرك تلفونك ما حقودي وابو دم لا أنا الله هذا يقولي وياي هاي عدك أنا يودجيسنا يا أبو ورياي دجيسو دقن يوحنك أنا قرت أقون إيميلي لكن ويل كيجا هذا جرافة جارسي سبلا وحنكو مري إن الهيلب كاج على عدو جويو وأنا لا أمي كنت هذه وليبة وريا أسكري جوي حنا سالن كيس كان تلفوني وقدر سيدا قدر صعب صعب أيوة محل ثاني أنت هذه تلفون قدعة لو ديب تلفون هلو وريا كان هذه ماشي مع جيلو ديبتان بات كويس أي شيء هذه بكال في روح ماشي كدعاية وريا قفك الله اللي سوى وزيرك سوى موجود هذه ما يمدون وزير
aniga kuma malinin adiga maanta dhan taleefon kale liigu mashquulinaa saas darteed kuma malinin kuma wiilkayga wariyaa dhiiggayga iyo dhacankayga adigana shaqadaada waxay tahay inaad baaritaankaa waddaa sida ugu dhaqsiyaha badan wiilkayga waa inaad ku soo badbaadisaa adiga ayay shaqadaada tahay waa dadaala waana soo badbaadinaa inta karankayga aniga waa dadaala ayuu ku leeyahay war dadaalkaaga muxuu yahay waa isku dayaa mudan waa isku dayaa dadaalkaaba booliska waddanka ayaan nahay naga cidna sharfaysa ama la darajayaysa habeeraatee ma jirto wasiir kastoo ku soo waca wuxuu rabo ayuu kuu sheegaya waryaa qolada kore iyo xiriir adigana ay tali adigana maxaa qabanaysaa ii sheeg tali telefoonka waa dhicyaa war waxaan ku weydiinaya adiga yaa inoo aheyd dad ayaa iska soo xirinaysaa waxaa rabtaa iska samaynaysaa yaa tahay ii sheeg maxaase u baahan tahay oon kuu qabanaa respect xushmad ayaan u baahanahay dhegeysa hadalkayga taliyaha ciidamada dambi baarista ayaan ahay dadkaas waxa ku haystoo keliya ayaan u baahanahay haddii adiga aad wax u baahan tahana waad ii sheegi kartaa aniga ayaa kuu qabanaya waxaad u baahan tahay ii sheeg koob shaah oo kuleel ah weliba halo war ninkii ma la hadash muxuu ku weydiiyey muxuuse u baahan yahay ma wareysata ninka adiga koob shaah oo keliya koob shaah uu ku leeyahay waa sidee ninku tali ninka sawirkiisa waa kanaa ku dhah wararkii ugu dambeeyey inay soo gaara ayaa waxay sheegayaan in la helo ninkii afduubta dhallinyarada wejigiisa ilaa haddana booliiska ay ku daba jiraan sidoo kale waxaa la sheegay inuu haysta 4 wiil oo uu ka mid yahay wasiirka wiilkiisa ilaa iyo hadda ninkaas kama uusan hadlin ujeedkiisa iyo sababta dhallinyaradaas uu u haysto booliiskana bannaanka ayay taagan yihiin war waxayna soo gaaran dib ayaan idinkala soo socodsiin doonaa hoos markaan fiiriyey waxaan ogaaday noloshaada adiga qiimaha ay leedahay tali qofka kula hadlaa doctor Rendi ninka hadda TV ka soo disay si fiican ayaan u aqaanaa magaciisana waa Saleem waana doctor waan ka hawaa tali
mudana wasiir adiga welwelka badan iska dhaaf ninkaas haddii ciidamada booliiska soo qaban waayaan waxaa igu ballanna inaan u diro ciidamada militariga ayagaana soo qabanayaan walaal saliim sidee tahayne waad soo ogaatay soomahan qofkaan ahay iyo magacaygaba waxaasoo dhan aniga waa shaqadayda ee waxaan ku weydiinaa adiga yaa tahay qofka aad u shaqaysanayuu yahay waxaan rabaa burcadda adiga aad la shaqaysa inaan ogaado marba haddii afduub la geysta micnaheeda maahan burcadoo keliya inay afduubkaas ay ka dambeeyaan waxaa laga yaabaa qof kale inuu jiro oo duruuf darteeda qof u afduubta anigana qofkaasoo kale ayaan ahay war 4 qofood ayaa soo afduubata waxaa isku malaysaa magaaladoo dhan inaad kala haysid war waxaan ku siinaa muddo nus saaca haddii aad dadkaa soo day weyso wixii kugu dhaco aniga kuguma dhigin la soco nus saacaas aniga ayaanba ku siinayo wasiirka ayaad halkan iigu keenaysaa weliba nus saacaas haddii aad ku keeni weyso waxaad ogaataa 4 hal inaan u dilayo warkayna ciyaarsan tahay ninkaas waa wasiir halkaanna ma imaan karo saliim waxaa samaynayso waa qalad hadda lugta oo keliya ayaan xabadda ugu dhuftay abbaa waxaan rabaa dad ii samayn weysaan waxaad ogaataan wiilkan noloshiisa inaad ku qamaaraysaan maskaxdan qaada ciyaarna iga maahan yaa warkayga qaado ninka xujo cusub ayuu keenay maxay tahay xujadana wuxuu yidhi wasiirka hoteelka ha yimaado muxuu iga damacsan yahay ma aqaano wuxuu kaa damacsan yahay haddii adiga hoteelka tegi weyso wuxuu ku hanjabay wiilkaaga inuu dilaayo ee maxaan samaynaa mudane ii sheeg haska fadhinna tala keen mudane warsakhajaayo sidee gacanigu ila cawriya qofka aniga aan ahay aqoon maad u leedahay horta walaalka arrintan iska soo afjara ku dhahay wasiirka ku soo wacay iimaw ku dhahay dhaqsahee maxay tahay sababta ilaa hadda ninkaas aad u soo xiri laadahay ii jawaab maxaad u aamusanta adigaan kula hadlayaa adiga sharciga wax badanaa ka taqaanaa teeda kaleeta ninkaas wax famili iyo dad ka dambeeya ma lahan keligiis ayuu nool yahay aniga wuu isoo doontay marka hore gurkiisa waan ogolaaday balse markaan fahmi waayey gurkiisa waan iska diiday sababtoo nin aan dabeecadiisa fahmay sideen ula noolaadaa labadeennaba isku dabeecad ma nihin sidaas darteed ayaan ku kala fogaanay hadda haddii aad garab u baahanta anigaa ku siinaya ii sheeg keliya ninkaas qolkuu ku jira lambarkiisa may ma tigi kartid maxaa yeele ninkaas waa khatar hub ayuuna gacanta ku haystaa maxay dhahda hub haystaa maya ninkaas hub ma qaadan karo teeda kaleeta ninkaas aad uu ii jecel yahay mana laga yaabo inuu i dhibaatay markii ii sheeg qolkuu ku jiro keliya may walaal noloshaada aniga khatar ma gelin karin isdeji taliya okay hadalkayga si fiican u dhegaysta saliim saaxiibtiis ayaa soo socoto waxaan nili kaga baahan yahay albaabka inaa u banaysa xaaladeedana si fiican ula socda gabadhaas gadaal baxa سليم 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 مين مغشى سليم سليم الباب كفر سليم أليش أيا كلها الليس إلى هذا النوع aniga marka hore qalad ayaan kaa galay sababtoo aniga waxaan aqsan ayaan kula hadlay balse hadda wax walba gadaal ayaan ka ogaado waa ku baryaaya albaabka fur dadka masaakiinta waxba kaama galabsan iska fasax saliim albaabka fur سليم البابك يا
wasiirkii qolada soo diray ayaa imaadeen war hadalkayga dhegayso ninkii silfaa hadda ayuu yimid carruurtaas maxaa u baahannahay in caafimaadkooda ogaan annaga taas kuuma oggolaan karo iga raali noqo war annaga taa rabta waa kuu samaynay codsigaa waa kuu tixgelina maa loo tixgelinsa marka annaga codsigeenna qasab maahan wax walbo aad ii samaysa anigan inaan kuu sameeyo wiilashan inaad aragtana lagama yaabo laakiin waan kula hadalsiinaa wakhtigana hadda ayuu kuu bilowday halo qofkii la hadlayo guruu miyaan waa aniga guruu waxba ha ka baqin adiga annaga ayaa joogna hotelkao dhan ku hareeraysan annagaanu ku badbaadinayn laakiin waxaan kaa rabaa su'aalan ku weydiina haa iyo may oo keliya igaga jawaab adiga ninkaas hub ma wataa ma lala jira dad badan maa la socdo intaasoo keliya ii sheeg taliya waxaa waay guruu halo iga raali noqo taliya fursadda waa ka faa'iidaysan weysay warniyow maxaa u baahan tahay ii sheeg wax walba u baahan tahay annaga ayaa kuu suubinin laakiin waxaa loo baahan yahay si dariiq ama nidaam inaad ku sheegtid huboo keliya wax laguma xaliyo marka aniga ii sheeg anigaa xalinaya barbaleen ku haysto maahan inaad dadka layso ama aad dadka soo afduubato wax allaala wixii lagu geysta ama wixii lagugu sameeyo keliya ii sheeg waryaan nabadda aad sheegaysa idinkaa markii hore keeni waay waxaan ku leeyahay wiilkan sharafta leh aabbihiisa oo keliya ila kulansiiyey micnaha wasiirka ayaan ula jeeda haddii aadan taas samayn waxaan doono ayaan samaysanay you bastard war haddii aan codsigaa kuu tixgelin wax allaala waxaa doonta maad nagula hadlaysaa annaga afar cunugoo keliya ayaa afduubatay markaasaa waxaad iska dhigaysaa magaalada dhan inaad soo afduubatay war annaga waa awoodnaa inaan meesha adiga aa hadda joogto inaan kugu nimaadno oo weliba si sharci darra aan kugula dhaqna laakiin ma rabna inaan samayn ee akhlaaq isku yar ayaan ku dhahay waryaa fiiri waxaan ku dhahayeel wasiirkaas agteeda keen haddii kale soo maahan 40 iyagoo meed ayaad u imaanaysaa tago tali shiishku waa qalbi igraamna maxaad samaysa adiga arrinkii o dhan si fudud ayaa gacantaa looga bixisa inaad sidaas samaysa ma ahayn adiga laakiin fasaca tali qofaa kor ka soo dhaca soo fiiriyo taliya ma naqaano qofkaas ma is soo tuuri mis waa la soo gamiya qaykaali ma fiiribo shit afduwaha ku sugnaa dabaq gudihiisa ayaa wuxuu ku xujiyay dowladda in uu la kulmo wasiirka haddii wasiirka uu diiday kulankaasna wuxuu sidoo kale ballan qaaday in uu soo tuuri doono saddexda baaqi ku ah dabaq gudihiisa ilaa haddan arrintaas dowladda kama aysan hadleen faahfaahinna kama aysan dhiibin sidoo kale waxaan sugaynaa dowladda waxay war ka soo saarto aniga waxaan ku dhahay wasiirka ila kulansii adigana waxaaba diyaarinaysaa habkaad igu dili lahayd war mala socotaa inay 3 iyo harsan tahay waxaan rabaa haddii aadan samayn waxaad ogaataa 3daasna waan ku soo xijinaa haddii kale soo maahan waxaan raba ii samay fursada haystaa maanta iska baashaal laakiin maalintii anigii soo marto waxaad ogaataa inaan kaa cawaajinayo oo weliba kaa cadgoosanayo ku soo martaa ka horrayso daawadayaal wararka ugu dambeeyay ee weyd balays ka soo baxa ayaa waxay sheegayaan ninkii burcadka ee 4 wiil haystay in shakigii laga qabo uu caddaaday 4 wiil mid ka mid ah ayuu ka soo tuuray dabaqii dheera ee weyd balays askartana hanjabaad ayuu u raacsiiyey wuxuuna ku hajabay 3 wiil ee hadda nool haddii noloshooda loo baahan yahay in wasiirka uu meesha uu joogo ugu yimaado ilaa iyo haddana ma uusan sheegin 4 wiil waxa ay ka sameeyeen iyo sababta uu markii hore tab u afduubtay wixii intaas ka dheeraadana la soo gudboonaadana dib ayaan kala soo socodsiin doonaa afduubaha wiilka uu ka soo tuuray dhismaha dheer weli isbitaalka ayuu yaalaa kooma ayuuna ku jiraa dhakhaatiirtana waxay sheegeen inuu nolol iyo geeri u dhexeeyo warka waxaa inoo sii dheer wasiirka wuxuu ku sii socdaa dhismaha afduubaha uu ku sugan yahay ilaa haddana lama oga labadooda waxay ka wada hadli doonaan balse wixii intaas dheer dib ayaa nagala soo socodsiin doonaa Say what?
aaw ninkii meesha qaabilsanaa aaw hadda ninkaas aan u baahnay inaan la hadlo adiga miya magacaygu waa antoni war antonidaada ma aqaana anigu ninkaas asaga ayaa ii yeeray inaan la hadlo ayaan rabaa 2 daqiiqaad fursad haysata ilaahay la sii dulqaado maxaad la taagan tahay maad wacdi okay hawlan hawshaada inaa faraha loola hadle xitaa ma taqaanide annagaa la hadlayne hallow idhegayso ninka kula hadlaya waa wasiirkii wasiir mar hadduu telefon adiga kuu soo diro waad fahmi kartaa waxyaabo badan ayaan ka wada hadlaynaa aniga diyaar waxaan u ahay inaan waxyaabo badan kuu qabto wiilasha ii soo siidaa marka waxaad rabtidna ii sheego lacagtaada iga qaado iska damaashaad iska baashaal raaxadaada qaado nin dhallinyaraa tahay damaashaad waad u baahan tahay gabarna saaxiib waad la tahay waa ku fahansanahay anigaa ku fahmi kara hawshaada waan kuu fududaynaya war adiga maxaa rabtaa maxaad rabtaayoo kale adigu dalabka keliya afka ka hadal anigaa kuu jooga meesha maxaan wasiir u ah wiilashan ii soo siidaa wiilasha waxbarashaan u dirsanaya anaa kuu jooga marka waxbaa ka baqin maxaad u baahan tahay adiga maanta dhammadana mudan aad ku haysaa wax sheeg waayaan ku dhegaysanne nala hadal taleefonka waa la jaray ma meel ibnaa taleefon ku khasaariyey naga daaya taliya antoni ayaa kula hadlaayo waan ku maqlaa taliya adiga keliya ayaan kula hadli karaa cid kale inaan la hadlo lagama yaabo soo hadal adiga war cid kale maahin haddii aani rabta inay la hadasho waxaan rabaa inaad horteeda soo fadhiisato weliba adigoo geesiyo karti ilaa horteeda timaad intaasoo keliya ayaan u baahanahay waxba ha walwalin taliya adiga dhiiggaagu wuu kulul yahay laakiin waxaan ku hayaa akhbaar dhiiggaaga sii kululaynaysa si fiican u dhegaysa akhbaartaas i dhegayso caaw waxaad ogaataa qof inay noloshiisa si raaxa leh u dhammaan doonto waan ogaa inaad haliyey tahay qofkaasna had badbaadin karayso warboota cidlaa ma rabee muhiimadda waa inaad ka hadashaa adiga muhiimadda oo keliya ka hadal adreeska ma rabtaa haa mise maya barbuu soo hadal meesha baaritaan ayaan ku samaynay cid joogtana haba yaraatee ma jirto waa faaruq war maxaa waa ciyaartahays meesha annaga waa tagna cidna maba joogto see waxay kaa yihin waxaa laga yaabaa adreeska inuu idinka qaldamay سفري كفر افك بي سي بي احنا تاينتي بي ما وكيل بي ملولو سينا حقين جوغاني الو حالتي سوى حنتها انك هدونا ماشي جوغا بي اسبيتالك جاي يا اخي انك هاك حي aniga xageedii wadaan isbitaalkaa lagu wadaa xanuun fara badan oo ku haya isbitaalka ha geeno adi bari xaafadeedii gee xaafadeeda rabaa aniga isbitaalka ha geenin ma isbitaal kuran oo kusoo caafimaadayseed wax materiyaal ayaa tiin aniga danta waxay ku qasbaysaa inaan inta dhaqaaqaan kor fuulan soo badbaadsado wiilka waryaa runta ii sheeg sidee wax u dhaceen adiga mahadashid tala iyo tusaale mid aad iigu tooran tahay haba yaraatee male waxaaba la qaataba in aad mar hore iska dhimato saaxaraan u daldalaysi bal fiiri feerahaaga intay ila ekaadeen waxyow nacaska maskax malid maskaxdaada waa eber waxa meesha ka dhacay ii sheeg mudane dhegeyso haye maxaa rabtaa isbitaalku mara banaan ku tahay yaa anigaa u imaanaya hor soco ma doonaya carruurtaas inay wax soo gaaraan waa tale hal daqiiqaan rabaa inaan kula hadlo idinkana meesha noo baran haddii ay macquul tahay mudane ra-iisul wasaaraha muxuu ku yidhi ra-iisul wasaaraha xoogaa wuxuu yidhi siyaasadda iyo sharciga xoogaa inuu war siyaasaddaada maha aniga wiilkayga ayaa maqan
idinkana waxaad leedihiin siyaasad baa noocan iyo kanay ka boodi derbi bay ka dhacday aniga wiilkayga anaa badbaadsanaya anaa aqaan idinkana sheekadiinna iga bixira laakiin waxaa samaynaysa sharciga waa ka dhidhiyey ra-iisul wasaarahana wuxuu yidhi aniga wiilkiisa u soo daynaya marka adiga isdejiyo keliya nidaam aan wax ku raadino bes waa ku baryaa intan igu eka aniga wiilkayga ayaa iga maqan qaabkaan u badbaadsan lahan aniga ayaa aqaana siyaasaddan iyo waxaan idinka aad waddaan aniga waxaan u baahanahay male u tagay waxaad ku tirahdaan ninkaas isaga ayaa hawshiisa qabsanaya wiilkiisana badbaadsanaya mudane adiga saliim miya saliim adiga miya mudane mudane aniga gabadheeda u baahnay haddana lacag faraha kuma hayo mudan gabadheeda haddaa ii badbaadi leed anig awal fara badan aan kuu haylaa waa ku baryaa mudan gabadheeda ii badbaadi dadkaas lacagay igu xojeeyeen lacagtaasna aniga gacanteeda kuma hayo meelaan geyna ma hayo mudan anigana sudeedaan kuu sidaa waxaa doontid iigu samee mudane gabadheeda meelay geeyin ilaa hadda ma aqaano waa ku baryaa gabadheeda halo wasiirka inaan la hadla ayaan rabaa wasiirka idib hadaayeto anigoo raba inaan kula hadla taleefonka igu damisay marka maxaad u baahan tahay wiilkayga ii sheeg dalabkaaga diyaar ayaan u haya adiga waad og tahay qofka kula hadlaaya qofka uu yahay iyo waxa uu u baahan yahay intaba iyo xaaladdan waxa geliyey dhegaysa wiilkayga waxaan rabaa horta inaan kuu caqli celiyo raggan aad adiga haysato inaad iska soo diisid adiga ayay dantaada ku jirtaa sharcigana ha baalmarin haddii kale ciqaab adag ayaad la kulmaysaa lacag intaad u baahan tahay aniga i weydii anaa diyaar kuula aniga dadka lacagta u bartay maahi teeda kale lacagna xaflad kuma dhigto kumana baashaalo mala socotaa wiilkaaga gacantayda inuu ku jiro haddii hadalkaas mar kale aad ku soo celiso laba cad ayaan wiilkaaga ka dhigaya teeda kale waxaad ii sheegtaa gabadha afduubatay iyo hooyadeeda meesha aad geysay iyo meesha aad ku afduubatay mudane warka maxaad u garab maraysaa waad og tahay wiilkaaga iyo saaxiibadiisa gabadhaas inay xoogeen kadibna ay isu dayeen inay dilaan laakiin taas way u suurtageli weysay adiga waxaan kaa rabaa warbaahinta intaas inaad ka caddayso maya hadda waxa waa laisku dheelo siyaasadda ayaan ku jiraa sumcadii sharafna waan leeyahay waxaasna ma samayn karo iga daa wiilkayga hal kale raadi adigu qiilal kale waa la dondooni karaaye waad hadli weysay soo maahan aniga ayaa ka hadalsiinaya waadna arkaysaa dhawaaqaaga intuu leekaanayo waryaa sooshaan ina keena adigana soo bax soo socda warkaaley shabaq ii diyaariya soo dhaqsada keena shabaqa aw dhigne waa waalaya ninkaa doro waxa walba ka sirto wuxuu rabo samaynaa doro waa nin fiyoon baa ninkan xagga xagguu jiidaa war qabta waa ka wasa socdaa qabta war waxay yihiin inta furtiin iga fiiriya waa maxay waxaan sidaan muxuu igu samaynayaa ninkuma waanaya war hadalkayga si fiican u dhegayso waxaa u baahan taha oo keliya ka hadal haddii kale booliska gacanta ayay kugu dhigayaan si xun ayayna kuu dilayaan intayna taas dhicin waa inaad wax walba fududaysaa just stop it afartaasi wiil ee cidda lacagta leh
ka dhasheen gabadha way xoogeen markay xoogeen kadibna waxay isu dayeen inay gabadhaasi dilaan marka taas inay sameeyaan yaa ku qasbay waan ogahay waa carruur dallaca laga badiyey laakiin anigaa aqaan sida dallacaas aan uga saari lahaa taliya daani codka fur mudana wasiir warkayga si fiican u dhegayso haddii aad yeeli weyso waxaan aniga ku dhahay oo maydhiyaha u tegi weyso wax walbana aad uga caddayn weyso aad noo sheegi weyso wiilkaaga gabadhaas iyo hooyadeeda gabadha inta xoogay hooyadeedana ka daba afduubtay meelna ku qariya meesha ay ku qariyeen haddaad sheegi weyso waxaad ogaataa wiilkaaga hilibkiisa cadcad inta u soo jaro aan cadcad kuga soo tuuraya waxaad samayn lahayd aday ku jirtaa iyo meeshaad wax ka doonan lahayd intaba annaga waxaanu laga baahan yahay afartaas qofood ayagoo bad qabaan inaan soo badbaadino marka seen ku soo badbaadin karnaa ii sheega taliya arrintaas annaga waa geli karnaa waana soo badbaadin karnaa sidee waa soo badbaadin ay leeysiin waxa soo qabanaysiin habeeraatay ma jirto waa badbaadin karnaa laakiin hal cilad ayaa jirta maxaa waa cilad ayagoo nabad qaba inaan soo badbaadin ma ku ballan qaadi karno mudane bal waxaan wuxuu ku hadlay fiir war waa wiilkayga aniga sidee baad u soo damaanad qaadi karin adiga idageysa isbatoore haatale waxaan kaa rabaa ninkaas adigaa wax badan la sheekaystay inaad xogtiisa ii soo ogaato waxa uu damacsan yahay iyo sida uu rabo inuu wax yeelo arrimihiisoo dhan iyo qorshihiisa xiga inaad ii soo ogaato maxaa qorshihiisa xigaa taliya dhegeyso ninkasaa u malaysiin maahan mana ah nin burcada ama raba dad inuu afduubto waana nin sharci yaqaane waxa uu rabo keliya inuu ogaado kiiskaas waxa uu ku saabsan yahay haddii kale cunuga ayuuba dilayaaba surya adigaa shaqada lagu diro waxaan ku niri ninka noo soo badbaaday halkaanaad ii fadhida war tala keen haddii kale afkaaga shan farood iga saar waxuu doonuu iska sheegaya waxbaan oo dirsannay nacnac iyo mataac buu wadaa ya dhib badanaa mudane lagu yaraa wax yar kaala yimaad idhegaysanayo wasiirka wiilkiisa cabaadkiisaa baxaayo wasiirkina cabaadkiisaa baxaayo sideen ku badbaadinaa marka ninkaas hadda wax badan ma siyaasi kara haddee uga boodta isbuuc oo gacanta ku haynaa kadibna waa ka badbaadin karnaa anaga
hadalkaaga macnihiisa ifaansii mudane wiilkaas aa u jeedta qaangaar ma aha qaangaarnimadiisana 3 bilood aa u dhima haddii maxkamadda la geeyo xataa oo la xiro haddee u badan 3 bilood ama 2 bilood oo xirnaana kadibna waa la soo deynaa wasiirkana jegadiisa saas kuma weynaayo wasiirkana saxaafadda la hadla keliya waan gartay يا شاله يا شاله اخبار روسيا المرف يا شاله يا شاله ورد النسيه يا شاله فرينا ورد النسيه يا شاله بليز المر جالس aan isdhegaysanno horta carruurta dhibkan geysatay maahan carruur qaangaara waa ay yar yihiin balse dembiga ay galeen waan ognahay gabar ayay kufsadeen kadibna waxay isku dayeen gabadhaasi inay dilaan arrintaasina waa arrin xun oo sharciga ka soo horjeedda anigu markii hore waxaan aaminsanaa in aysan wax dembiga gelin laakiin markii dambe waxaan ogaaday waxa ay sameeyeen in ay tahay qalad weyn oo bini'aadannimada iyo dumarkaba ka soo horjeedda tacaddina ku ah arrintaasna midaan aniga raalli ka ahay haba yaraatee maahan waana ka soo horjeedaa ninka la yidhahda saliimna tillaabada uu ku dhaqaaqay waa uu ku saxan yahay oo kuma qaldana anigu intaanan la kulmin ka hor horta waxaan islaa saliim waa nin burcada oo qalad ka galay carruurtayda kulankii kadib waxaan ogaaday inuu nin saxan yahay lacago ayaan u ballanqaaday waa uu iga diiday aniga laftayda haddii booskiisa aan ku jiri laha waa aan samayn lahaa shakhsi walbana sidaasoo kale ayaa looga baahan yahay markii dhibaato noocan oo kale dhacdo inuu isagana go'aan noocan oo kale qaato oo uu dadka badbaadiyo saliim horta waxaa waa wiilasha waa uu soo qabtay booliskana arrintu waa ay ku jiraan anigana marna raalli ka noqon mayo raggan dembiilayaasha inuu sharciga sii daayo haddana waxaan warkan ku soo gebagabaynayaa maxkamadda ayaa inoo ballana wixii idiin dhimban booliska ayaad weyddiin kartaan aniga buuq dambe uma baahni tartiiba isdejiya الو باي الو انا قارتي قبل ايوه يقربتي حاسك انا وين يقرب انا ودي يقرب لا يروح على استانين انا انتو كبر يا زيد وكبر يا حاسك ايوه يقربتي كبر انا يقربتي سي خاطر انا ودي له معك سماه بس انا ودي له مسكين إنافة حاسكي كبريني يقتلي دتكان يدهمون سلامة وسمايا أنا ما حنقلب سوي وحاسكي يقتلي وكبريني يقتلي مش أشرع الملان warkayga si fiican u dhegaysta caawa saacaddu markay tahay 3 saac waxaan idinka rabaa inaad ii keentaan gaarigaasna waxaan rabaa inaan ku sameeyo dana yar ayaan rabaa inaan ku soo dhammaysto danahaas markaan soo dhammaysto kadib waan soo laabanaya wiilka guruu lagu magacaabana gacantayda ayuu ku jiraya haddii aad isku daydaan aniga inaad soo dabagashaan ama cid kale inaad soo raacsiisaan waxaad ogaataan guruu markaas inaan kow ka siinayo aanan dhaafayn codsigaasna waa inaad ii fulisaan waxaad sheegaysid wax soconaya maahan mastar saliim hal baabuur iyo ka badan annaga waa naga helaysaa laakiin muhiimaddeenna waxay tahay ciyaalka aad naga haysato inaad nagu soo wareejiso okey way faantaa u malayna hadalkayga aniga qorshihiina waan ogahay iyo weliba tan wasiirka waxaad rabtaan arrinkoo dhan inaad soo afjartaan taas ma laga yaaba inaan idinka yeelo maya tartiib faraha ka qaad adiga wiilkayga qaabka u badbaadsan laha aniga ayaa ku waqaana deganaan muuja adiga orod idhegayso mastar saliim ilmaha aa haysato oo wax xoogeen ilaa ay hadda maba ay qaangaarin marka kulli dawladda maba laga yaaba inay wax saas ku suubisay adiga oo keliya inaad badbaadisa ayaa lagaaga baahan yahay ayagoo bad qaban waa inay dhankaaga ka yimaadeen intaasaa noo muhiim annaga waa ay fahantaan filaa idhegaysta cunugayr annaga jokaatal ayuu nagu ciyaaray annagoo siyaasadda muddo ku soo jirnay idinkana waad iska fiirsanaysaan
waxaasoo kale wax loo dulqaadan kara miya war wiilkan waa aniga dhiiggayga iyo dhacaankayga waad garan kartaa qof dhiiggiisi iyo dhacaankiisii qof uu ka maqan yahay xanuunka aan dareemi karo idinka ma ogidin laakiin maantay amarkii ugu dambeeyey ayaa idin siinaya ninka inta u tagtaan waxaan idinka rabaa labadiinnaba inaad inta baxdaan meydkiisa oo keliya ii keentaan dhegeyso si fiican u taliya saliim taleefonu ku hadlaya kaale wuxuu sheegay dhegeyso halo waa kuma saliim waaye qofka kula hadlaya sidee tahay ها صاحبك سليم هاي إيه ورن حالة هذا كورن بل هو اللي جوال كيك بعض aniga waa noolahay waxaan kaa rabaa hal asxaan inaad ii samayso أصحاب نوعك وسميها marka hore xafiiskayga ayaad tagaysaa waxaadna raadinaysaa kaarkayga lacagta waad soo bixinaysaa bangiga ayaad tagaysaa lacagta ku jirto dhan markaad soo bixiso kadib masaakiinta ayaad u qaybinaysaa lacagteeda waan ogaa aniga wax ii haraab yaraatee ma jirto ilaan meesha ugu dambaysa ayaan taaganahay lacagteedana dadkaasi ha ku noolaadaan mid kale ii samay saaxiib dadkaasi masaakiintani way ii xanaaqsan yihiin igana raali garay ilaan ma sheegi karaan beri inaan sii noolaanahay دنيا iyo in kale intaasoo keliya ii samay saaxiib وأكون نصيب كاس dadkaas masaakiintaan kuu sheegay isbitaalkayga ayay ku jiraan daryeel fiican ma haystaan waxaan kaa rabaa isbitaalka inaad ka bixiso oo isbitaal fiican aad u raadiso ilan anigaa wax u qaban waaye isbitaalkaasna wax qabad fiican ugama jeedin anigana lacagtaas oo keliya ayaan u awoodaa doore isdeji adiga gaarigan laga cusubtay waa lagu soo war wadaa xitaa gaarigaysii waa ku baryaa gaarigayga qaado mudana sabarka badi wiilkaagana mar dhow ayaan soo badbaadinaynaa bal fiiri bacaad jiif ayuu iga dhigay markaasuu leeyahay isdeji war maxaa isdejiya ordayga hor dhaqaaq annaga waa soo badbaadin rabnay laakiin wiilkaaga asaa qorshaha nooga dheeli laakiin wax walboo nagu qaadato waxaan rabnaa inaan soo badbaadino ee isdeji oo keliya adiga war badbaadada maana orado idhaaf waxa tuutaa idin helaa marka horeba qaldanaa idinkee wiilkayga hortiinna ayaa lagu kaxaystay waxna waa u qaban weydeen mudane labadaynaba horteena waa lagu kaxaystay laakiin annagaa wax qaban waa lagu kaxaystay aniga horteeda laguma kaxaysan haddaan ku tusayaa sidaan u soo difaacanayo wiilkayga halo wiilkaygii aabe wax miyuu ku gaarsiiyey ninku wax ima gaarsiinin aaw hadda asagii gaariga ayuu qaatay wuuna baxay aabbo halkan ayuu iga tegey anigana meeshaan ku suganahay ma aqaano
dhimale waryaa ay dhegaysta horta ciidankaygu yara ciidan is dhegaysanno ninkaa duleedka magaalada ayuu aniga wiilkayga uga tegay ugu horrayn waa inaan horta wiilkayga soo badbaadsadaa markaad wiilka soo badbaadisaan kadibna ninka aniga silaca iyo rafaadka noocan ay mariyey ballan waxaan ku qaaday intiisa qorraxda soo bixin inaan dab qabadsiiyo Halo. mudane wasiir gaariga saliim ma saarnayn ee wiilka ayaa saarnay dhimale waa caafimaad qabtaa ninkii xagguu aaday ii sheeg ma ogi aabe adiga sidee tahay marka ii sheeg aabe aniga waxba ima gaarin waa fiicanahay hadda asigii mee marka ii sheeg gaariga wuu iga dejiyey kadibna asiga ayaa ka xistay gaariga meeshuu ka baxnay aniga ma aqaano don't move anywhere I am coming to you anaa hadda ku badbaadinaya wiilkayga filimkan waxaa lagu tarjumay studio Famproj Mogadishu dhaqaaji gaariga daawadiila war degdegoona soo gaaro wuxuu sheegayaa saliim si nabada inuu ku sii daayo wiilka uu wasiirka dhalay balse nasiib xumo asagoo uu waddada ku soo jira ayuu wiilkii shil baabuur galay kadibna meeshaas ayuu nafsadiisu ku waayay muddada kaleeta ilaa iyo hadda saliim booliiska gacanta kumaysan dhigin meeluu jirana lama yaqaano balse markii horeeta waxa uu caddeeyey gabdhihii hore loo xoogi jiray inay ka dambeeyeen afarta wiil oo asaga afduubtay gaariga uu shilka ku gala wiilka wasiirka markii la baarana waxaa la ogaaday inuusan gaarigaas markii horeetaba saliim uu la saarnayn oo wiilkoo keliya uu saarnaa gabadhii qaladka laga galana xaqeedii saliim ayaa u soo dhiciyey meydkeedana waxaa laga helay duleedka magaalada